السلام عليكم وصاحبك شاهد بيزاني مدوين وكلام مغنين سودو هذا دونيدانا inuu ku nool nahay waxa jira wax la yiraahdo jacayl iyo cabsidaas ayaa isku bedesho nacayb iyo xasinimo badana waxa laga yaabaa dadka dunida aad ugu jeceshahay inaad horumar gaarsiisid inaad dhibaato kala kulantid mararka qaar canjajuub iyo ciil iyo xasinimo aad kala kulantid ama aad istiraadid sida ay u dhaqmayaan waa si adiga ay kuugu dalneeyeen ama ay ku nacib yihiin marka ugu horeysa wax nacayb la yiraahdo ma jiro meelaha laga jeclaanaya afar meel baa laga jeclaadaa meesha koowaad waxa la yiraahdaa waa waaridka hooyo ama aaba jacayl bay ku muujinayaan meesha labaad laga jeclaanayo waa qofka markaas noloshaada isla wadaagaysaan meesha saddexaad laga jeclaanayo waa asxaabta meesha afraad laga jeclaanayo ama jacaylka lagu muujinayo waa bulshada aad la nooshahay asxaabta iyo qofka marka aad nolosha la wadaagaysid iyo waalidka intaba waxay ku muujinayaan jacayl bay ku muujinayaan mararka qaar waxay ku muujinayaan baqdintaas marka waxay isku bedelaysaa inaad kala kulantid ama aad dareentid in xaasinimo ay kugu wadaan ama nacayb ay kugu wadaan tusaale ahaan haddii aan soo qaato marka aynu yareer carruur aynu ahayn badanaa waxaan kala kulmi jirnay waalidiinteen hooyo ama aabe kolkoolin wax siin markii aan soo qaangaarno waxaan kala kulmaynaa cadaadis iyo dib u celin iyo joog iyo mararka qaar inaan la kulanno inaan ciishoono ciishoodku wuxuu imaanayaa waalidku way baqayaan waxay ka baqayaan marka aan soo qaangaarayno ama aan soo weynaanayno inay dhibaatana soo gaaraan baqdinta ay baqayaan waxa isku bedelaysaa in ay waxyaabo badan ka celiyaan waxyaabo badan markii laga celiyo waxa dareemaysaa in waalidku ku nacib yahay waayo waxa harta laga celinayaa baqdintiiba waxay isku bedelaysaa marka inaad dareentid in lagu nacib yahay ama xaasinimo in lagu hayo sidaas la mid ah qofka aad nolosha la wadaagaysid ama asxaabta ama bulshada baqdin ay noloshaada ka baqayaan tusaale ahaan markaad qof nolol la wadaagaysay ama xiriir ka dhaxeeyo markuu arko inaad qurux badan tahay ama markay aragto inuu wiilku qurux badan yahay markay gabadha aragto wiilku inuu qurux badan yahay waxa soo galaysa baqdin armaan laga la wareega baqdintaasi waxay isku bedelaysaa mararka qaar in telefoonka ka qabo weydo ama sidii la rabay ula hadli weydo ama xogaa is xanaajiso markaas wiilku waxa laga yaabaa inuu dareemo in cagajiid ay ka cagajiidaysa ama uu siraado qoftan kuma jeclamiya markaas wuxuu bilaabayaa inuu mar walba la hadlo kadaba ordo isdareensiyo inay nacab tahay ama xaasinimo ay ka wado maya baqdinta ayaa qofkaani bedelayso xitaa baraha bulshada marka aad u fiirisid waxa laga yaabaa inuu qofku caayo aadan aqoon u lahayn weliga aad arag meel idin ka soo wada bixin qofkaani wuxuu kugu caaynayaa ama uu ku dhibaateenaya waxa ay tahay waxa aad sameynaysid waxa uu ka baqayaa inaad horumar sii samaysid baqdintaasi waxay ku qalifaysaa inuu nacayb ku muujiyo uu ku caayo maanta wixii ka dambeeya haddii aad aragtid qof adiga ku dhibaateynaya ama ku xasdaya ama ku muujinaya nacayb isla markaa hala soo boodin in lagu nacayb yahay ama lagu dhibaateynaya ama waxaan lagu talagalay niyada waxaad gelisaa maxaad sameynaysaa waxa aad sameynaysid wax qurux badan miya sida aad u dhaqmaysid si wanaagsan miya sida aad u taalid si qurux badan miya waxyaabaha aad ku dhaqmaysid ma tahay wax bulshada wanaagsan haddii waxaasi dhan ay yihiin wanaag niyada waxaad gelisaa qofkaani wuxuu ka cabsanayaa noloshaada tusaale ahaan markii waalidka xataa loo fiiriyo waxa ay hooyo ama aaba ka baqayaan inaad meel xun ku dambeysay meel xun ku dhacdid noloshu aad ku dambaysid tusaale ahaan inaad drugska baratid in dhibaato lagu geysto in habeenkii aad soo dahdid baqdintaasi si kaaga fikirayaan waxa ay ku fikirayaan marka dambe inay ku celiyaan joog ku dhahaan joogitaasi ay ku dhahayaan joog marka dambe waxa dareemaysaa in adiga dhan ciil aad ku noolaanaysid lagu xasdayo waalidku ay ku xasdayaan inay ku nacib yihiin nacib ma aha waa baqdin ay ka baqayaan inay dhibaato ku soo gaarto qofku haddii uu noloshaada ka baqayo wuxuu ku dadaalayaa in qofkaasi uusan sidii la wanaagsaneed uu kula hadlin qofku markuu noloshaada ka baqayo hadduusan garanaynin in waxyaabaha uu ku diidayay waxyaabaha uu ka celinayay sida uu kula dhaqmayo inay ku dhibaateynayso hadduusan garanaynin adiga waxa uu arkaysaa qofkan inuu ku xasdayo ama uu nacib ku muujinayo laakiin adaa laga rabaa marka maanta wixii ka dambeeya qofka hadduu nacib ku muujiyo in isla markii aad fikirtid oo aad ka fikirtid maxaa sababaya qofkaani inuu nacib ku muujiyo ama ku xasdayo haddii aad wax wanaagsan sameynaysid waxa aad sameynaysiina aad adigu ku qanacsan tahay niyada waxaad gelisaa qofkan baqdin baa haysa baqdinta ayaa ka keenaysa inuu xaasinimo ama nacayb ku muujiyo haddii waalidka yihiin isla markii niyada waxaad gelisaa waxa ay ka baqayaan waalidka inaad meel xun ku dambaysid baqdintaasi ayaa waxay sababaysaa marka inay cadaadis ku saaraan marka mar walba waxa laga rabaa adigu inaad xaaladda ku qiimeysid qofka nacayb ku muujinayo qofka xaasinimada ku muujinayo sida ay kula dhaqmayaan iyo booska ay ka taagan yihiin haddii maanta qof xiriir idin ka dhaxeeyo qofkaas
kuu arko inaad qurux badan tahay ama aad wanaagsan tahay ama aad caqli badan tahay haddii aad mararka qaar aad cadaadis kala kulantid isla markaa haddii qofkaani waa ku neceb yahay ama xaasid buu noloshaada ku yahay waxaad dareentaa inuu ka baqayo in noloshaada uu waayo adaa laga rabaa marka maslaxad iyo xal inaad la timaadid oo aad qofka dareensiisid inuusan ku waynaynin laakiin haddaad dareentid in xaasinimadii aad mindi ku taag ay meesha timaado waxaa dhacaysa labadiina qof inaad isfahmi weydaan marka dunida aynu ku nool nahnay wax cabsi la yiraahdo ayaa jirto ma jirto wax nacayb la yiraahdo hal qof baa ku nacaya waa qof horumarkaaga kasoo horjeeda baa isla marka wuxuu kuu muujinayaa nacayb waayo wuxuu rabaa inaadan muuqanin isla markii uu ku caynaya ama baraha bulshada kugu arka ama daris kula ahaado ina halka ila fahantaa umaleynaya cadaadis badan marka aad dareentid oo aad ka dareemaysid dadka aad dunida ugu jeceshahay qof nolol la wadaagaysid ama waaridka badana waxaad ku dadaashaa inaad xoogaa yariisa waqti ka qaadi kartid oo kaliya meel gooniya aadi kartid kaliya wax qabsan kartid kaliya isku mashquuli kartid inta badan aad ka maqan tahay oo aad kaliya meel ku mashquulsan tahay waa inta badan maskaxdaadu degayso iyaguna aysan ku muuqanaynin aysan ku dhibaateynaynin xanaaqna aadan dareemaynin laakiin haddii aad hal qol ku wada jirtaan oo aad saa iskaga soo horjeedaan maanta oo dhan waxaa maskaxdiina ku wareegaya saakay hadalka isdhahdeen waxa laga yaabaa xanaaq inuu kugu sii bato ciilku inuu kugu sii bato isdhibsiga uu meesha yimaado mar walba waxaa samaysaa qofkan haddii nolol aad wadaagaysaan ama familka uu ka mid yahay aad isla joogtaan idin kala maarmi karin inaad waqtiyada qaar kala boodi kartaan oo aad ismashquuli kartid oo meelo kale aadi kartid oo waqtiga meelo kale kusoo lumi kartid kadib idinkoo isku soo xiisay baa guriga iskugu imaanaysaan kadibna markaasaa farxad idiin bilaabanayso isfahanku idiin bilaabanaya waayo markaas waa isku xiisteen laakiin haddaad maanta dhan is ag fadhisaan 24 hours la joogtaan waxaa imaanaysa midkiin midka kale hadduu hal eray yiraahdo inaad isku fiirsataan ereygaasina aad u qaadataan dhibaato waayo wejigiina ayaa iska batay waxaan kusoo gabagabeynayaa meel walba dunida kaga joogtid haddii qof ku dhibaateynayo isla markaa haddii qofkaani waa ku neceb yahay wuu ku xasdayaa marka hore waa inaad ogaataa maxaa sababaya qofkan inuu ku caayo ama ku dhibaateeyo ama ku xasdo baqdin uu ka baqayo miyaa noloshaada horumarkeeda mise baqdin uu ka baqayo inuu ku waayo baqdintaasi ku dadaal inaad xalkeeda keentid ha ku dadaalin in qofka aad u fiirsatid sida uu dhaqmayo ama aad ka daba samaysid waxa uu sameynayo waayo waxa dhacaysa haddaad adigu dab tahay asiguna basin yahay in meeshaasi haddaaba istaabataanba ay holac uu sii badanayo mar walba waxa ku dadaashaa inaad adigu xal keeni kartid fikri kartid isdeji kartid waa saaxiibka Shaahid Biisani meel walba dunida ka joogto waxaan ku leeyahay Allah kugu xifdiyo assalaamu calaykum